barnaamijkan waxa uu ka hadlayaa hiddaha dhaqanka Soomaalida gaar ahaan dhaqashada idaha. Iduhu waa meesha ka mid ah meesiyada ay shafeecsato Soomaalidu oo ay dhaqdaaneen meel kasta ay joogaan. Laakiin iduhu waxay aad ugu badan yihiin buuraha dhaadheer ee Ra'iisul Casayr iyo halka ay baduhu iskaga darmaan ariga ka soo rogan ee dhaxanta leh gaar ahaan gobolka Sanaag. Xilliga ay iduhu u diyaar garoobaan inay rimaan waxa la yiraahdaa iduhu waa ay sumladeen oo loola jeedo sumalkii baa lagu daray. Sumalkuna waa wanka idaha lagu daro. Iduhu waa nugul, waxay u nugul yihiin dhinaca abaaraha. Marka Soomaalida hore iyo tan maantaba waxay idaha ku sii daayaan wanka iyadoo loo eegayo dayaxa. Haddii sida la yeeli waayo waxaana idaha ku dhacaya waxay dhalayaan xilli abaar ah, dabeedna waxay noqonayaan qaar huf beela oo aan waxba ka harin. Inta badan waxa ay rimaan bartamaha dayrta si ay u dhalaan seermaweydada guura. Idaha saddex baa baabiisa: suul, suluf iyo sumal. oo loola jeedo suulku waa caanaha laga maalayo xilliga guga oo ay gabdhuhu weelka la daba joogaan. Waan ogahay inaad isweydiinaysid ma idaa la maalaa. Waxaa kuu sheegaysaa warahdii Soomaaliyeed ama martidii Soomaaliyeed ee oran jiray ida dhaylo ma leh, dhiil buuxda ma leh, waxaa loo wataa suman iyo sabeen iyo sarar macaan iyo sacab kumaal. sulufku waa cambaar la mid ah cadhada ku dhacda geela, taasoo ay sababto noole aan laga eegin caafimaadkiisa ama la fiirin inuu cudur qabayo in kale oo lagu daro, iyo dhul kulul oo la dejiyo, iyo xilli roob ah oo la taataabto iyo wixii la mid ah. Sumal waa wanka idaha lagu daro si ay iduhu u rimaan una dhalaaniin iyadoo aan loo eegin waqtiga lagu sii daynayo. waa uu dilaa haddii lagu daro wanka ama xilli aan lagu talagelin. Soomaalidii hore meesiyada xoolaha waxay aad ugu jeclaayeen idaha sababtoo ah waxaa jiray sababo dhowr ah oo ay ku doorteen. Waxaana ka mid ah waxay dhab u aaminsanayeen in hilibka iduhu uu yahay daawo. Sidaa awgeed waxa ay Soomaalidii hore ku mahmaahi jireen lax iyo laxaw meel ma wada galaan, oo la jeedaan xanuun iyo hilib lixaad meel ma wada galaan. Hilibka iduhuna uu yahay daawo. Ninka buka waxa lagu daaweeyay waxa ugu fiicnaa in loo qalo wan afcada ah, hilibkiisana loo durduro, qaarna loo kariyo, qaar kalena loo shiilo. Abaan Soomaaliyeed oo cadka idaha ka sareysiinaya cadka riyaha iyo ugaadha kale ayaa yiri caatada riyaha lama qashiyo cawlka joogsada caatiya baruur baan raga caafimaad tara. qodobka labaad ee ay Soomaalidu ku jeceshahay idaha waxaa ka mid ah ninku marka uu rabo inuu xoolaha u xiro waxa uu qalan jiray wan weyn ama sabeen shilis ah. waxa ay dadkii hore u qali jireen haweenkooda oo ay jeclaayeen mar walba marka uu dhasho ilmo ama wiil inay u qalaan idaha.